maanta gabi ahaanba waxa la dhacay dadkii isticmaalayay mega abka la yiraahdo mega ee la yiraahdo 2139 oo ah exchange lacagaha lagana faa'iido laguna khasaaro waxa la dhacay ku dhawaad 40,000 oo qof oo Soomaaliya oo dalkii jooga oo dibadda jooga dadkaasi intooda badani waxay gashteen lacagaha kan ugu yari wuxuu gashtay lacag gaaraysa 20,000 afartan cisho ka bacdi 20 kaasi waxay ku dhaleysay 20 kale waxaad heleysay 40,000 dadka aqliga laahi lacagtooda way kala baxayeen dadkaan aqliga lahaynna siyaade raadinayeen boqolaalka qaar dadkii baa laga dhacay dad badanna way isticmaalayeen laakiin waxa meesha si xun loogu baaba'saday oo loogu dhacay waa Soomaali eber Soomaalidu maanta ooyinta ka dhacaysa hadaad aragtaan Telegramka iyo WhatsAppka iyo baroorta iyo lacagaha qaar baan ka naxay oo la leeyahay wax ay soo dhigteen ay soo gashteen qaar ba 10 ku laga dhac qaar ba 20 ku laga dhac qaar ba 30 ku laga dhac qaar ba 50 ku laga dhac baroorta ka dhacaysa waa kuwa video recording man ka soo duubay habaarka Soomaalida ka dhacaya mega caawato waa lagu dhacay Soomaalidii baaba finish ba laga dhigay dhalilaahu idaraajuu lagu dhacay waqti jiray war Soomaaliya marka meesha wax ka faa'iidaan waa laga baxa kadibna waa maxaa la intii faa'iidada lagu shaqeeyaa haddana waa laga baxa 40kii cisho marka wax ka heshid kala bax ma yaqaanin Soomaalida way sii dhigatay way sii kordhaysaa de maanta Soomaalida baroor ba u taal mega exchange waa lagu dhacay finish